السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waa magaalada Kassel oo xafiiska Somali Sifaw waxa maanta nala joogto walaasheen Amran oo Hamburg ka imaatay oo dhiban. Amran ku soo dhawow. السلام عليكم waxaan ahay Amran Abdi Maxamuud magacayga waxaan ka imiday gobolka Hamburg ee aan deganahay waxaa laga qaatay laba ciyaala oo wadankan aan ku dhalay baa laga qaatay midna dayr baan ahaa midna hadeer baan umul baan ku ahaa marka sabab cad oo laga qaatayna aysan jirin marka ahaan oo dulmi cada marka waxaan xaggan maanta u imaaday oo intaas oo jid aan soo maray waxa weeyaan inay walaalaha Soomaaliyeed ficil iyo dhiig haday noqotaba ay igu caawiyaan ayaan u imaaday maadaama oo lagu yiri ilmahaagii hadeer tooliyay hadda ka bacdiba wax rajo lagu soo celinay ma jirto waa lagaala wareegi lana rabo in family cadaana gacanta laga saaro ubadkayga anigu aan dhalay 9 bilood calooshaan ku soo sidii oo waliba kan yar aniga naaska aan sin nuujinin babo isagoo 2 bilood ba jira laga qaaday marka waxaan iga codsanayaa aniga horta hooyo Soomaaliyeed baan ahay habeen ma seexdo maalin ma seexdo aad baan u dhibaataysanahay waxa kaliyaatay ee iigu weyn waxa tahay hadii aan maxaan ku koob aqaadis ilaahdo aan bocunta cunaa ilaahdo in ilmahaygii aan ka dhax arkayo oo ban xitaa laga yaabo inay nafsadeedu xitaa ay hadeer toolay ay isbedesho waayo murugo iyo dhibaato darteed oo ninna waxa ma soo sheegaysa laakiin maanta waxaan u soo istaagay inaan ilaahdo walaalahayga Soomaaliyeed intii family cadaan ilmahayga qaadan lahaayeen inay family Soomaaliya leegu dhiibo waxa leegu yiri markaan looyarkii wareysanay wuxuu nagu yiri horta adigu wax ilmahayga lagu siinayaa ma jirto dariiq cad laga mariyay family-gaas iyo hooyadaas la barayay cusub cadaankaaba ilmahayga la wareegayso xaq u yeelata okay xaq uma yeelan karto laakiin laba adiga ku furan buu yiri labada ku furan waxay yihiin ina family oo adiga ka socdo uu soo galo oo yiraahdo aad tiraahdo family-gan haleegu dhiibo iyaga ay dayactiraya amba se qof diin kula wadaaga dhaqan kula wadaaga iyo sinjiil kula wadaaga marka waxaan la soo kaashaday jahliyada Kassel jahliyadaha oo dhan oo Jarmalka ka dhisan waxaan ka codsanayaa sidii jahliyada Kassel ay cod iyo gacan iyo iigu fidiyeen maxaan ku raadayay ficil ay iigu sarakaceen waxaan ka codsanayaa inta kalena inay u soo istaagaan hooyooyinka Soomaaliyeed gaar ahaan waxaan ka codsanayaa maadaama ilmahayga families loo naag cadaan hooyo looga dhigo maamo cusub inaa muuta cusub looga dhigo hooyo Soomaaliyeed taas baan ka codsanayaa إن شاء الله بالله كريم أنا جمر لي دبعتها ده حق كمسة وقوي كرا أد بنكملها أنت هكبدنا ولا يا المهد الكرا وحن أو وراء أبا مالك استلي صدرا كل يوم طلعت المحكمة أو كل يوم بصدرا وحاسن وحنا نقول كلها هي عند الدعوة وهم عارك قبائل متشفتوا منها اللي يقول أنا أنت كمتشفتوا صدق waxyaabo ilmaha wadamada lagu qaatana saddex midna kuma qorna oo dadkii wax yaqaanay xitaa way akhriyeen hooyada darooada isticmaashay ama hooyada ciyaalka dishay ama hooyada ilmaha dayacda ilmaha sawirradooda xitaa waan idin soo dhigaya waayo ilmahayga ilmo ay ka muuqato nolol iyo ay ka muuqato dharkooda labiskooda micnaha ilmo xeerfana noloshooda inta asxaabta igu hareeraysan waxay yiraahdaan ilmahaaga sida u jeceshay xitaa qof uu ma aamintid bay go'an jireen ma sha Allah marka وقدرات ولا له وحنا نيجي عطسنا يا أنتي هوية عدالة الماء هوية لو نقولها إنها هوية صومالية بقول كيف بقول أنا كعطسنا يا إني أسوء استاكتو إن اسمه صو حاضر صو قفكي وديار قفكي محاكورة ذاي برجله أسوء استاجي إنه المحاس ويقول هذا أنا وديار لورجي إن شاء الله بالله كده هذا كده مسوق بكرة ولا لا كله صومالية ولا هي عولي بنقصه دوينا يا وما تنتهي أمرا وجبر صوماليات ودبن أو نقطة ما دي مقالة هامبروك وحن تعود سنة مر لبعض يمرسد حاد إن صوماليدا جرمال كوكونا لودن إن أي جبر ناس عوامات اللي تقيب قاتان هتين قطو إن فاميلي حرورت هذا وصو دعين كره يهدي نقطة نقال أهان يهدي نقطة تغيير شرعي انتبه مركا فضلا gabadhan Amran walaasheen Soomaalida hal caawiyo waxaan kaloo aan ogeysiinaynaa Soomaalida Kassel in berrita galabtii rabo kulan taageera in loogu qabto Amran masaajidka Soomaalida ee ku yaala Ulmulveg 5 markay saacadu tahay 4 iyo barka galabnimo marka qofkii arinta Amran si faahfaahsan inuu ogaado rabo taageera ka geysta rabana fadlan bari galabtii ha ka soo qayb galo kulanka masaajidkaas lagu qabanayo waa mahadsantihiin
adinka mudan reerkaas loo xariijinayaa in insha Allah brito afarta iyo barka ay imaan doonaan masaajidka dabaqeynka halkaasna ay ku dhageysan doonaan dhibka walaashood amran garabna ay u noqon doonaan Soomaalida Jarmalka joogtana waxaan rajeynayaa inay fahmeen fariintii iyo codsigii amran ay ka codsatay oo ah in haddii ay jiraan qoysas diyaar ah shuruudahaasna buuxin karo inay isku filan yihiin ilmahan Soomaaliyeed hayn karayaan inay ayagana is soo mail gareeyaan emailka meeshan kusoo qoreyna waxaan idin rajeynaynaa khayr videogan hadda daawatidna insha Allah ugu yaraan usoo duceey walaasha iyo ilmaha yararka ee Soomaaliyeed ee la qaatay waana idin salaameynaa waa Somali Seefaw iyo jaaliyad Soomaaliyeed ee Kaasal. Assalaamu calaykum.